بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa oo reaction khalkhalkiisa iyo buuqiisa wataynii wadaa anu iskama samaynayo laakiin afgobaasigii ugu dambeeyay xasan Saleebaan Haaruun xasan garay ninka loo yaqaano wariyaha caanka ah arooskiisii munaasabadii ugu quruxda badan lahayd ugu qaayaha quruxda badan lahayd ee maalmihii u dambeysay lagu qabtay hotelka Rice ee magaalada Boorame. xasan garay waa sharaf oo ka mudnaa dadka shacabkiisa ma taqaanaaye loogu soo galbiyay maalintii ugu quruxda badan lahayd maalmaha ka duwan ayay ahayd. marka intaanan u gudagelin reaction ka khalkhalkiisa iyo buuqiisa wata waxaan inaga codsanayaa like-ta share-ta comment-iga si degdega inaana waxba dib inagu haysan oo la boobtaan inta u badani inay la boobi doontaan filayaa sida soo muuqatay maalmihii anigii oo horta YouTube-kan ma taqaanaayay aniga muddo si badan aan lahayn oo haddana ay dadka shacabka ay aad iyo aad iga farxiyeen. marka xasan garay waa sharaf oo ka mudnaa war saxaafadeed hadday tahay iyo hadday tahay ma taqaanaayay xildhibaano hadday tahay xukuumad hadday tahay iska daaye isaga iyo Maryam Muuse Geedi. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa labadii qof ee kala hela wiilal diinta yaqaano oo daalacaya islaamka ilaahay ka yeelo. horta taa waan ugu ducaynayaa. waxaan leeyahay xasan garay waa niyow aad iyo aad nin muddooyinkii ugu dambeeyay kasoo dhex muuqday shacabka Somaliland oo war saxaafadeed haddii la yidhaaho aad iyo aad shaqadiisa u gudanaya ayaa tahay. waxaan ku leenahay labadii isku roon ee ifka raaca ku joogtana rafaadin iftiinka roon ah inaga yeelo. horta taa waan ugu ducaynayaa. xasan garay arooskiisii oo cidba u kala hadhay magaalada Boorame, Hargeysa, Burco, Berbera, Jigjiga meel kasta laga yimiday oo maalmihii u dambeysay xasan garay anu ma arkinba aroos wallahi beenini sheegi maayo ilaa iyo maba garan karaba aroos maayir hadday tahay wasiiro hadday tahay xildhibaano golaha wakiil maba arkinba aroos loo waniyo heede waryarkaa yar iska ducaysan buu ahaa xasan cid kasta ma taqaanaa cid maanta waxaan ku leeyahay maanta aad iyo aad buu dhegaha Soomaaliyeed in badan xasan garay sanadihii ugu dambeeyay oo dhegaha ugu jiray ma taqaanaa nin yaroo aad u firfircoon u ahaa nin shaqadiisa gudanaya weeyaan. markaa midda labaad xasan garay waxa maalmihii u dambeysay ee arooska uu ka dhacay aduu 3 ayaamood ee ciidal oxda hotelka Rice. marka iyadii oo ma taqaanaa maalin farxadeed ay guurku ay farxad ay ka tahay. marka waxaan sheegayaa niyo horta mid baa ma taqaanaa in meesha marka aroos jiro in laga sheega maaha siyaasad iyo wax siyaasadeed iyo in la soo hadal qaado maaha. marka rag dhan oo waxaan arkayay siyaasadii xitaa gujiyay oo ma taqaanaa munaasabadii markii la soo bixiyo hoolkii oo cameermay ma taqaanaa iskala garan waayayba oo burqaday Cabdikariin Cali Mooge, Barkad Jaamac Batuun raggu waxaan ku leeyahay looma kala hadhin meesha aad iyo aad bay u qiimo badnayd. xitaa war saxaafadeedka Somaliland ma sida Ethiopia ma meel kasta laga yimiday. marka xasan garay maanta xuduudiisa ayuu tuujiyay meesha haddii la tuujo biyo waa inay ka yimaadaan amba ay ka iman waayaan. maanta xasan garay inuu shacbi ku dhexleeyahay Somaliland gudaheega aad iyo aad baan u garanay. ma taqaanaa xasan garay arooskii aroosyo maba aragba
laga soo qayb galo maba oo sidaan howlalku ay buuxsamaan maba arkinba. horta xasanow sharaf baad ku mudan tahay. waxaan leenahay xasan garaydh weriye waxaa tahay aada iyo aada u firfircoon qaaran warbaahinta cable t v. waxaan leenahay aada iyo aada baan uga mahad celinaynaa ninka sida quruxda badan leh arooskiisu u dhacay ee mataqaanaa maalmihii u dambeysay ee 3 cishe ciidda ay cishe 2 ciidood annaga noo hayd mataqaanaa arooska farxadda daraaddeed oo markaa haddaanan luka tegina aan uga soo hambaliyeynay dee hambaliyo aada iyo aada u qaaliya aan hawada soo marinaynay. waxaan ku leenahay xasan aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. waxaan leeyahay ciidanka kale ee war-saxaafadeed kale si fiican ayaad usoo gudateen waajibkiinii ini saarnaa ee saaxiibadiin mataqaanaay hadday mataqaanaay saa isku garab joogaan war-saxaafadeedyadu oo nin kasta oo maanta mataqaanaay amba guursanaya amba dhib kale kusoo korodha haddii saa la isku garab joogsado horta waa si aada iyo aada u fiican. waa go-aan keli haata siday nacamtii ay cududooda usoo muujeen ee hoolka usoo camireen ee meel kasta uga yimaadeen ee ugu soo labisteen yaa dee lama arago loo maqan 100 war-saxaafadeed baa guursay intaasi kama ay soo qeyb gelin laakiin waa sharaf oo ka mudnaa war-saxaafadeedyada kale sida mataqaanaay ay dee u dhacayso amba yay dee muuqaalka markaad eegtaan ay dee noqonayso ee dee ka dhex muuqata waayo waa sharaf oo ka mudnaa. dee waxaan leenahay horta labadii isku roonay ifka raaxa ku joogtaan rafaadin iftiinka roona inaga yeelo annagu xaggaa reexaanteeda waa iniga soo ducaynaynaa. aada iyo aada baan u mahadsantihiin. waxaan leenahay laakiin macayaanta farxadda ee mataqaanaaye qoys la taagayo ee dhidib la taagayo in siyaasad meesha lagu soo hadal qaado ma aha dee anise ila muuqato oo dee sababtoo ah siyaasadii ma aha dee meeshan ducaa looga baahan yahay farxad baa loo yimid dee waa ayaanta dee mataqaanaa geeri jirto dadku way murugeysan yihiin murugadooda waa inay muujiyaan. maalinta aroos ay tahayna waa in dee mataqaanaaye dee aada iyo aada loo farxaa oo isay farxad ahaan jirta loo farxaa laakiin siyaasadda anuu raaxaantayda ka reebaan odhan lahaa. aada iyo aada baa u mahadsantihiin. janalkaad iga daawanaysaana waa janaale rc. waxaan leeyahay laygta iyo komitiga midna haygala habaabina taageerayaashada qaaliga meel kastoo joogaan aada iyo aada baan u salaamaya. maanta jawigu waa rooban yahay jawi degan weeyaan. waxaan leeyahay farxadda dib ha iga dhiganina ee igu yartaa taabta. wassalaamu calaykum.